waa qiso xanuun badan oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed. Magaca gabadha iyo halka ay ku nooshahay waan qarin doonaa. gabadha oo ka sheekeynaysa qisadeeda ayaa waxay ku bilowday sida tan: waxaan ka imid baadiyaha magaalada aan ku noolaa, waxaana la ii geeyay dad ay aabahay qaraabo dhow yihiin. xilliga aan dugsiga aadayo maahee, xilliga kale oo dhan waxa aan ka shaqayn jiray guriga oo aan qaban jiray shaqada guriga oo dhan keligay. xilli aan wax akhristo iyo xilli aan ku damaashaado maan heli jirin hawsha guriga oo badan darteed. dhanka kale, duruufaha noloshu waa igu adkayd. subaxdii sidaan quraacda u samaynayo qoyska oo dhan, shaqada gurigana u qabanayo, waxa aan ka daahi jiray iskuulka. ganaax adagna waa la isaari jiray. waa igu adkayd xaqiiqadii inaan bixiyo ganaaxaas. waxa aan markii dambe goortaan u dulqaadan waayay xaalkay la wadaagay maamulihii iskoolka oo iga dhaafay ganaaxaas. waanan u duceeyaa mar walba maamulahaygii dugsiga sare oo ahaa dugsiga xilliga ka jiray magaaladeeda. inkastoo kuwo kale ka jireen, haddana ma jirin dugsi la taya ah kan aan dhiganayo oo gobolka ugu caansanaa waqtigaas. gabadha oo sheekadeedii sii wadata waxay tidhi: markii aan dhammaystay dugsigii sare, waxa aan waxbarasho jaamacadeed ka bilaabay magaaladii aan ku noolaa, khaasatan kuliyad caafimaad. markii aan dhammaystay waxbarashadeedii jaamacadda, ayay tidhi gabadhu, waxaa igu weynay sidii aan wax u tari lahaa qoyskayga. hase yeeshee wax shaqo ah maanan helin. gabadha oo sheekadeedii sii wadata ayaa tidhi: intaa kadib, dad aan qaraabo dhownahay ayaa waxay iga caawiyeen inaan master u aado waddanka Uganda oo lacagta jaamacadda iga caawiyey. aabahayna wuxuu ii soo diri jiray biilka nolosha, isagoo kolba neef geel ah ama neef ari ah ii soo gadi jiray. markii aan soo dhammaystay, waxa aan ku soo laabtay waddankaygii hooyo. hase yeeshee sidii hore ama si ka daran, wax shaqo ah waan soo qaban waayay. welwelkii nolosha ayaa igu sii batay. muddo markii aan joogay ayaan shaqo kooban oo sirfay ah ka helay mid ka mid ah hay'adaha NGO-yada caalamiga ah. shaqadaas oo iga caawiyey nin aan aqaano oo ka shaqeeya hay'adaas. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ii yeedhay ninkii shaqada iga caawiyey. waxa uu igu yidhi: naheedhe, caawaan isku nimaan. saan ku idhi: dee ma soo baxee guriga iigu kaalay. si uu yidhi: naa gurigaaga maahee, aniga ayaa guri bannaan haya ee igu kaalay. saan ku idhi: war anigu ma soo baxo oo waan xishoonayaa maadaama aan gabar ahay, kumaan imaan karo anigoo fahamsan ujeedka iyo halka uu socdo. si uu igu yidhi: naa waad edeb daran tahay, maxaad noo daba cararaysid haddaadan waxba ogolayn oo waxa aan ku siiyey wax iigu beddelin. saan ku idhi: war ma naag jirkeeda ka ganacsataa ayaad ii malaysa? suuteelkii igu dhigan yaab. mise maalintii dambe shaqadii waa la iga baaciyey. maalintaas ilaahay baa ogaa dhibkii isoo gaaray iyo welwelkii aan kala kulmay anigoo intaasoo shaqo raadinaya oo haddana laiga baaciyey. waxa aan dareemay murugo aanan noloshayda dareemin, iyadoo nolol adag oo hore isoo bartay. maalintaasi waxa aan ku fikiray in aan isdilo runtii, waana u dhowaa. gabadha oo sheekadeedii sii wadata ayaa tidhi: runtii waxa aan arkaa gabdho aan waxba baran oo shaqooyin fiican la siinayo. aa idinla kaftamay dhegaystayaal, haddii geedkayga shaqo heer sare ah i gaarsiinayo, waxba maan barteen oo rafaad uma aan soo marayn ee waa dhigan laha anigu ma oran. ee gabadha ayaa tidhi: alxamdulilah, maanta shaqo fiican ayaan haystaa. oo gabdhaha Soomaaliyeed waxa aan leeyahay: samra oo caqiidadiina adkeeya, iimaankiinana ku kalsoonaada. ugu dambayn, dhegaystayaal, haddii aad haysid qiso ku dhacday qof walaalka ah ama adigaba hadday kugu dhacday, fadlan ila soo wadaag. siina sheer garee muuqaalka, like, subscribe. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.